Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamay walaalaha Soomaaliyeed. Muuqaalkan waxaan ugu magac daray sagaal jiradii reerka haystay. Waa laba gabdhood oo midna 10 sano jirta midna 9 sano jirto oo hooyadood uga tagatay reer dhan oo ilmo leh oo xoolo leh, yacni reer dhan mas'uuliyad uga dhigtay. Labada gabdhood hooyadood muddo bil ayay magaalada ku maqan tahay oo markaa arrimo famil ugu maqan tahay. Labada gabdhood markaa kaligood ayay meel degan yihiin. Way jiraan dad kale oo meesha xerada ama berrinka la degan, qoys kale ayaa la degan, laakiin reerka iyaga ayaa maamula. Labada gabdhood midda idin muuqata iyo mid kale insha Allah aad arki doontaan. Labada gabdhood markaa reerka iyaga ayaa maamulay, iyaga ayaa mas'uul ka ah. Xoolaha iyaga maalaya, caanaha iyaga lulaya, ariga iyaga soo hoynaya, iyaga raacaya. Yacni labada gabdhood ayaa reerka dhan meel degan wada garanaysan, yacni reer dhan oo meel degan maca ilmihi maca wax walba leh, xoolo iyo wax kasta leh ayaa maamulanaya. Muhiimadana waxay tahay aan la wadaagayo, yacni waa dhowr siyaabood ayaan kula wadaagayaa. Tan koowaad waxay tahay inaad aragtaan bal gabdhaha miyiga iyo mas'uuliyadooda xilliga ay bilaabato, inta ay gabadha baadiyaha ay mas'uuliyadeeda ku bilaabato, iyo sidoo kale dhiirigelin gabdho badan oo miyiga jooga, gabdho badan oo magaalada jooga oo laga yaabo inayna reerka ama guriga waalidkooda ayna hawl badan ka qaban. Si kastoo tahay muuqaalku iska nuucay badan yahay, dhiirigelin u qaata inaad gabdhihii magaalada barataan, gabdhihii miyiga iyo sida ay hawlkarnimadooda tahay intaba u qaata. Muuqaalkaygu halkan buu ka bilaabanaya, waa subax hore. Gabadhan koowaad gabarba shaqay qaabilsan tahay, gabar kasta shaqadeeda waa intusi doona, inkastoo mowduuca qayb labaad insha Allah aan u yeeli doono oon diidayo inuu dheeraado. Markaa gabadhii koowaad saaka way soo kacday, hadda waan la joogay, hooyadeed may kicin, lama jafin, dhowr mar hurdada kuma laaban sida gabdho badan oo ogahay. Iyada soo kacday saaka alisaydii, kadib dabkii bay shidatay, sida arkaysaan shaaxi bay saaranaysaa. Shaqooyinka gabdhahan maasha Allah Ilaahay hadisto, maasha Allah waan ku celcelinayaa. Way kala leeyihiin, mid subaxa hore leedahay oo shaqayda ilaa subaxii laga bilaabo ilaa duhurkii ayay shaqada leedahay, midna galabtii ilaa habeenkii ayay shaqada leedahay. Iyaga ayaana kala maamushay. Maasha Allah tabaarakallah. Runtii dad badan oo horta qaarkood laga yaabo inuu qurbo joogin qaabka aan ka arkay qoraaladooda iyo waxa ay soo qorayaan, dhahaya gabdhaha yar laguma shaqeeyo, gabar yar in shaqo loo dira ma ahan. Horta yacni shaqadu waa wax ka mid ah aqoonta bini'aadanka. Ilmahaagana markaa inaad dhinacna wax ka barto, dhinacna aad shaqadii ka barto isagay anfacaysaa. Wiil iyo gabarba way tahay in mid walbana inuu shaqada uu ku soo baxay ama ku habboon yahay mid walba loo sii tababaro. Wiilashana waan la wadaagi doonaa, wiilashii baadiyaha insha Allah. Gabdhahana waxa weeye aniga waxaan aaminsanahay gabar walba karti leh, firfircoon, meel iska soo saari karta, nolosha dhan walba maxay ahayd qof adkeysama u leh inay wax walba nolosha ay qabsan karto. Waa gabadha yaraanteedii la soo tababaray, maxay too lagu soo tababaray shaqadan iyadoo yar. Midda kale gabdhaha qaarkiin yacni qoraallo badan gabdho badan aniga aan muuqaalo ka soo dubay oo waxaan arkay dhahaya maqasaba gabadhaada inaad shaqo u dirsato, inay kuu shaqayso, ma shaqa loo abuuray ama shaqaad u dhashay dhahaya. Gabadhaadu xaq bay kugu leedahay, adigana xaq baad ku leedahay. Ilmahaaga yar marka uu yar yahay inta uunan xoog lahayn, xaq buu kugu leeyahay inaad xanaanayso, inaad daryeesho, inaad xambaarto, inaad wax walba u qabato. Laakiin maalinka uu xoog yeesho isaguna xaq baad ugu leedahay inuu wax kuu qabto. Kulay gabdhaha qoraalada noocaas qoriyay anigu rag maan arkin gabdhaha qoriyay. Muuqaal hore gabar yar oo Sabriin la yiraahdo aan soo dhigay ayaan arkay dad markaa qoraya qoraallo aan sida hadda aan ka soo hadlayo oo markaa diidan gabdhaha yararka in wax loo diro. Anigu markaa waxaan dhigi karaa kulay waa dadka aan waalidku soo caawin jirin. Alxamdulillah anigayga in la hadlaya wallahi isma amaanayo. 10 markaan jiray reer baan hay jiray oo haddii hooyada Ilaahay u naxariistay ay naga dhaxdo ama meel magaaladii kale ama qof waalidkeeda kale adigu qofku waalidku meel buu aadayaa, haddii meeshaas ay naga aado wallahi beenidii ma sheegayo reerka aniga hay jiray. Ma fahantay intii hooyadii ay shaqo ugu soo tababartay, intii wax walba aan qaban jirina Ilaahay baa maxay tahay mahadda iska leh. Hooyadayna waan u mahad celiyaa mar walba, waayo kartida aan maanta leeyahay iyo wax qabadka aan qabsanayo ma aanan qabsan lahayn. Inta haddaan kaga soo gudbo gabadhii yareed canjeeladii bay soo dubtay, shaaxi bay soo karisay, barqadii baa la yimid, barqadii caanihii bay lulaysaa. Arigu xilliya abaara la soo maray ma caana badna, laakiin inta yar ariga way soo lisaan, meel bay ku shubtaan, markay u garooraan subaxii way lushaan. Iyaga reerka dhan maamulaya. Hadda waa 10 jir baa ugu weyn.
maaha 15 jir maaha xitaa 12 jir waa 10 jir hooyooyin badan waxaan rajeynaya inay daawanayaan oo laga yaabo gabdhahooda iyagoo gabdho badan oo gabdhaha waaweyn u joogaan aanan waxba ku aamin karin gabdhahana waxaan leeyahay waalidkiina idin soo koriyay inta dib in la soo maray xoog ha ka hagranina gabar waxay gurigeeda ka tahay ay gurigeedana la tagtaa yani guriga waalidkeed waxay ka ahayd ay gabar kastana gurigeeda la tagtaa hadalka aad ugu dhegdhegayo waxaan leeyahay ka raal noqda gabadha yar ciirtii bay lulaysaa inta badan gabdhaha hawlkarka wiil iyo gabarba inta badan miyiga ka soo baxaan waa dad hawlkar ah hadda markii magaalada la arko ama magaalada la eego dadka meelaha ka shaqeynaya firfircoon ee dukaamada loo dhiibay shaqooyinka haya inta badan waa dadkii asalkoodii baadiyaha ku soo koray ee baadiyaha ka yimid marka ilmaha qasab maaha baadiyuhu kulli qofka marka uu soo weynaado adigu 10 sano soo gaaraba mas'uuliyad baa la saaraa wiil iyo gabarba 10 sano in la dhihin xitaa 6 sano markuu soo gaaraba waxara ayaa mas'uul looga dhigaa waxba meel baa lagu ogaadaa magaaladana marka sidoo kale yani meel kasta waalidku uu joogo ilmihiisa isaga tababari kara ilmaha marka tababarida shaqada guriga waxay u tahay 10 inuu isagu bari wax qabsado oo firfircooni ka helo caanaha waxa la yiraahdaa xurbin baa la yiraahdaa ama waa la xurbinayaa ama xurub intaba waa la dhigi karaa marka caanihi bay hadda gabadhii bixinaysaa oo sida aan sheegay barqadii xaafada ciyaal yar xitaa way joogaan ma sha Allah caanihi kadib subag bashiilaysa subagii caanaha laga bixiyo in badan subag sixina way arkeen marka subagii sixinta ahaana waka oo subaga sixintaana siyaabo badan buu maraa meelo badan buu maraa marka ugu horeyso dabka la saaro kadib caanaha ay subag baa soo kala baxaya hada caanihi ama caanooya la yiraahdaa baa hooseeya subagiina waka waa laga gurayaa si kasto tahay marka muuqaalkan waxaan leeyahay gabdho badan oo laga yaabo qaarkood la leeyahay waxbay baranayaan jaamacada dhiganayaan iskuulay dhiganayaan xitaa hooyooyinka qaar markay ku sheekayaan wax soo bartay ilaa dawladda dhexe waxay ku sheegeen inay xilli hore kici jireen yani 4 habeenimo ama 10 saac habeenimo intay kacaan quraacdii diyaariyaan gurigii quraacdii diyaarsan tahay subaxii intay soo kacaan buugaagtooda qaadan jireen maantana waxaan arkaa in badan gabdho la dhahayo gabadhu waxbay barataa goormay wax qabanaysaa waalidka inaad kaafiso wax u qabato ducaad ka helayso ducadana waa lagu hodmaa halka caanooya la yiraahdaa ma sha Allah caanooyadaas aad bay macaanta waxa ka mid madow waa culay hadaa soo aragteen in badan caani xitaa ku soo aragteen waa culay muuqaalka waa laga yaabaa subagii mar labaad dabka lagu celiyay muuqaalka waa laga yaabaa waxyaabo yar oo qalqaldan inaad ku aragtaan laakiin wuxuu waa ilmo wax sameynaya waa ilmo sidaas oo tahana uma liitaan ma sha Allah subagii marka ugu dambeyntii mar labaad dabka loo celiyay way soo shiileen waxaas oo dhan gabdhaha yararka ee 10 jirada ayaa qabsanaya ma sha Allah tabaarakallah soo dhaa qaybtii labaad iyo gabadha labaad in muuqaalka labaad insha Allah ku xijinaya doorkii baa la gaaray qadadii bilsacada dabka saaraysa ma sha Allah tabaarakallah marka maanta muuqaalka aan jeclaystay walaalaha qaaliga inaan la wadaago runtii kartida iyo maxay tahay firfircoonidana ilmaha waxay ka bilaabataa ama in aad kugu tababari karto in aad ilmihi hawl ku qaybido ilmahan hadda aad arkaysaan waalidkood baa tababaray reerka uga tagtay marka si walba tahay qayr badan baa idin